halkani waa degmada Xudun ee gobolka Sool waxa soo gaaray kumanaan qof oo ka soo cararay dagaalada ka ogan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxayna halkan ku sugan yihiin muddo ku dhow 3 bilood dadkana waxay u badan yihiin dumar iyo caruur waxaana soo buux dhaafiyeen iskuulada magaaladaasi qaarna waxa cooshada looga dhisay darafyada magaalada si ay uga nabad galaan roobabka iyo dabaylaha kuwana waxay culeys ku hayaan qoysas ay qaraabo yihiin magaalada degmada Xudun waxbarasho looma dareero subaxii oo ardaydu iskuul lama dhigtaan taa beddelkeedana waxa iskuuladii hoy u noqotay barakacayaasha Laascaanood dadkana ma haystaan cunto ku filan iyo biyo nadiif ah xaaladuna waa halis waa barakacii ka soo barakacay magaalada Laascaanood una soo barakacay maxay haytay magaalada tan Xudun oo kamid ah maxay haytay Laascaanood dadkaas oo soo barakaciyay Muuse Biixi una maxay haytay xoog iyo awood u sheegtay maxay haytay sida loo ogyahay caalamka laga ogyahay oo meel walba laga ogyahay oo Ilaahay ogyahay oo ummadoo dhameeyay ogtahay ninkaas oo leh maxay haytay khasab maxay haytay ayaan maxay haytay idinku haystaa oo dhahaya maxay haytay ciidan aniga leh qof walba ciid baa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku abuuray ciidan Allah subxaanahu wa ta'aala ayuu wuxuu ku abuuray dadkan hadda ku nool ee maxaa la dhahaayeen gobolka Sool waxa ku nool dadka dhulbahanta iskale oo waxa iskale asasiiba iskale ha iska lahaatee maxay haytay khasab iyo xoog ayuu ku haystaa wuxuuna leeyahay goonigoos noqda oo maxay tahay Soomaaliland noqda de Soomaaliland waana noqon dad Soomaaliya baanu nahay waxaanu raacsanahay anagu Soomaaliya kan iyo barxadda tan waxaynu isugu soo baxanay dhibaatooyinka uu inoo geystay ninka la yiraahdo Muuse Biixi Cabdi burburkan iyo dagaalkan ka hortowba tacadi badan buu nagu hayay hadduu tacadi badan nagu hayay ragayaga hoosoos baa loo leyn jiray dumarka kuraasi baa lala dhici jiray hatigaad baanu qabnay qofkii siyada suuqa wax ka soo qabto laamiga xitaa waana laga dejin jiray annaga haddaanu dahay dumar iyo rag iyo caruur iyo inta xitaa hore u dhaawacaan ee guryaha noo jiftay baa kaam xadad ah kuraasida ay dumarka la dhaceen dhaxda qaar baxtaan naafoobay oo jiifay horeba u jiifayaan xitaa dagaalkan horteed baa ay ahayd waxa jirtay in wax khasab ah oo aanan haynin oo lacagan xitaa laga qaado oo xitaa hadii aanan haynin albaabadana laga baxo oo laamigana laga dejiyo hadeer dagaalkan uu nalagu soo qaaday ee dadkana laga laayay ee nalagu barakiciyay ee bayd dalka yagi ha ahaado laakiin aanan wax hanti nooga dhisnayn oo wax aanan ugu imanin hanti haday tahay iyo weel aanan la soo qaxin waxba aanan la soo qaxin waxaan ugu nimid dadka yagi iyo dalkayga waan numiyo dadkayga kamid ah waan laakiin uguma aanan iman wax hantiya oo nooga dhisan iyo waxaan sidoo toona عليكم أنا أكو هذا مجا عدد كبرك عياشة اللي جسوا بركعية مجالة لاسعنا ذا قبل كسال رنتي دت كان عدو شدان وعدد لسوا بركعية مجالة لاسعنا واحد مجاله هرومر هيك سنة شن يتمن كاسر عيسو ماله ود كتل ناس مجالة سوح هيك سنة هرومر لكن شن يتمن كاسر دت كاسمير ربين معمول كهالك كتريا مجالة واحد كدعي كعدون كاس واحد كان دت كاسي واحد هذا أركتي عدد كاس إنه يسن ربين معمول كهالك كتريا تاسيو كنت إن معمول كاسي إن أركتي دولها adeegsaday magaaladaas waxay ahayd magaalo camiran wax barasho leh goob caafimaad leh wax walba socdaan dad horumar higsanaya dadkii maamulkaas wuxuu tusay colaadii iyo nacaybkii uu qabay magaaladaas waa la barakiciyay waa la burburiyay dadkii hantidii guur waa la burburiyay dadkii wax baranaya waa la laayay dumarkii dadkii vulnerable groupka ahaa macnaha dhibaatadu saameynay sida dumarkii caruurtii waa la barakiciyay qaar waa la dilay qaar magaaladoodii baa laga kiciyay taasi waxa ku keenay dadkaas nacaybkaas maamulkaas uu hayay hadda waxaanu sheegaynaa adduunweynaha nacaybka oo Muuse Biixi uu qabay dadkaas inuu hadda soo baxay dadkii qaar waa la barakiciyay meel ay u barakacaan ma haystaan cunto ma helaan biyo ma helaan markanaco inay ka galaan kaneecada ma haystaan cunto ma haystaan waxay u baahan yihiin humanitarian response ama gargaar bini'aadanimo waxa jira dad caruur oo horumar higsanaya oo rabayna waxbarasho dhigtaan horumar gaaraan mustaqbalkooda ka fakaraan runtii dadkaas waxa loogu talagalay in qayb la laayo qayb la dido hospitaaladii danta guud ee dadka lagu daweynayay dadkii madaafiicda lala dhacay in la laayo dadkii oo dib loo laayo taasina waxay xuquuqda bini'aadanka meel kaga dhacaysa dadka waxa loo geystay waxyaabo aan magaalada waxa loo geystay waxyaabo criminal oo xuquuqda bini'aadamka ka soo horjeeda taasoo ah in dadkaas loo adeegsay madaafiic aan loo meeldayn caruurtii baa la laayay dumarkii baa la laayay hantidii guur baa la laayay hantidii guud ganacsigii baa la laayay oo macnaha dadkii laga barakiciyay soo waxaan ka codsanaynaa adduunweynaha iyo hay'adaha caalamiga ee deeqaha bixiya kuwa humanitarian response ga sameeya in dadkaas lala soo gaaro waxyaabihii u baahan dadka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan ahay maxaan dhahay dadkii ka soo barakacay magaalada Laascaanood
oo maxaan dhahay dadkooda laga xasuuqay caruurii baana la ka laayay dumarkii baana la ka laayay maxaan dhahay waayeelka baana la ka laayay hantidii baana la ka burburiyay maxaan dhahay guriyihii baana la ka burburiyay si kasta maxaan dhahay musabixi anaga wuu nagula dhaqmay dadka iyagu waxa xasuuqay caruurta iyadu waxa xasuuqay haweenna ma dhaafin meel wax allaala wuxuu noo dhaafay haba yaraatay ma jirto marka maxaan dadweynaha aad arkaysaan waxa weeye dadweynihii ka soo barakacay magaalada Laascaanood ay ka soo barakacisay madaafiicda iyo xabadaha isdaba jooga ilaa iyo maalintii bishii shanaad ilaa iyo maalinka maanta ah barakacayaasha iska soo daba dhacaya qayb lagu laayay hooyooyin iyo caruuro 7 caruur iyo hooyooyinkood guriga lagu dumiyo lagu laayay wiil lagu laayay habla yaryar sida arkayseen lagu laayay sidoo kale rag caruuro lagu laayay ummadii oo dhan lagu laayay anagu waxaan nahay barakacayaashii ka soo barakacay magaalada Laascaanood dhibaatada loogu geystay musabixi ugu geystay iyo maamulkiisa istaba jiidanayaan maxaan ku uraaday wuxuu laayay hooyooyinkeeyo wuxuu laayay aabahayo wuxuu laayay waayeelkii wax allaale iyo wuxuu noo reebtay musabixi ma jirto mushashaani ilaahay waxaan ka barnay in ilaahay dhulka la gooyo waxaanu leenahay dhulkayga annaga iska leh annaga ilaahay nagu beeray adigu ma lihi dhul baad leedahay dhulkaaga ku eekow waxaanu leenahay intaanu iska difaaci karno waanu iska difaacaynaa dhibaatooyin buuna baday annaga cagacad baanu guryaha ka soo baxnay caruuraha gacanta la soo baxnay waanu soo lugaynay hadeerna waxaan ku sugannahay degmada xudun nabadii barwaaqaanu ku joognaa guryo noogoma dhisna laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu ilaahay naga saaro musabixi ma doonayno mana rabno mana taageersanin hore iyo dibtoona uma doonayno waanu aniga daqaab jismaan baa la yiraahdaa waxaan ahay qaxoontigii ka soo barakacay maxay ahayd magaalada Laascaanood nimanka maxay ahayd dadka dhiigacbinta oo dadka dhiigooda banaystay oo gardarrada ku soconaya ay dadkoodii adduunyadoodiiba baabiyeen Laascaanood maanta lama oran karo meel baa u beed qabta hadday maxay tahay cusbitaal tahay hadday waxbarasho tahay hadday guriyihii la deganaa tahay dad iyo adduunyaba iyaga hoosteeda la isku dumiyay musabixina wuxuu doonayaa dadka haduu meesha nabad iyo maxay ka doonayo iyo uu ka doonayo rajo uu ka doonayo tasaa muusan galeen cadownimada uu maxay tahay u qabo buu maxay tahay ugu soo marmarsiyooday waa la igu duulay iyo meel kale la iga yimi laakiin waxa la dagaalamaya waxaanu sheegaynaa inay yihiin dadkii uu xaqdarrada maxay tahay markii hore gardarrada ku qabsaday markii dambena uu maxay ahayd ikhtiyaarka ka qabsaday oo markay u diri jiray madaxa u duuban jiray dhibtu way soo karaysaa qofka haduu maxay ahayd aan laga deyn intaas 15 sano waxay 15 sano waan dul qaadanaynay ilaahay baana maxay ahayd nooga maxay tishaasiinaya oo maxay ahayd uga maxay ahayd jahanaba ku abaal marinaya waayo awal badhigi cabuha dadkuna sidiisaba haday samaystaan qof hoggaan ka dhigtaan qof aan maxay ahayd dambiilaha haday ka dhigtaan waxa fiican qofka haduu samaysanayo madaxweynaha samaysanayo ama qof mas'uul uu ka dhiganayo inuu qof ceebka saliima uu ka dhigto maxay ahayd uu ka dhigto hogaamiye ninkani de awal baaskari buu ahaa inuu xoog wax ku jujuubo iyo inuu wax diro waxaan ma yaqaan siyaasadna waaba laga habaaray ma yaqaan meesha loo soo barakacayaasha soo gaadhay degmada xudun ee gobolka Sool iyo deegaanada ku teedsan ayaa marba mar ka dambaysa isi soo taraya waa anigu Maxamed Maxamed Cawil Kawte degmada xudun ee gobolka Sool